Assalaamu calaykum kusoo dhawaada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Qodobada barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah Manchester United oo qarka u saaran saxiixa Anthony, Pierre-Emerick Aubameyang oo ka jawaabay dalabka Manchester United ay ka gudbisay saxiixiisa, Liverpool oo talaabo qaaday saxiixa Jude Bellingham, waqtiga Wesley Fofana tijaabada caafimaadka u maray Chelsea oo la ogaaday. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. Fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe dhaysiina share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro. Mahadsanidina. Kooxda Manchester United ayaa u muuqata in ugu dambeyn ay gacanta ku dhigtay xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Ajax Anthony, sida ay wararka ay sheegayaan. Manchester United ayaa xagaagan oo dhan doonaysay xidigan si ay ugu xoojiso weerarkeeda xilli uu tababare Erik ten Hag uu dalbaday in loo keeno xidigan. Sida laga soo xigtay Fabrizio Romano, Manchester United ayaa si aad ugu dhow saxiixa xidiga reer Brazil. Kooxaha Ajax iyo Manchester United ayaa ku dhow inay heshiis buuxa ay ka gaaraan saxiixa xidiga Anthony, iyadoo labada dhinac ay ka heshiiyeen qiimaha xidigan oo ku kacaya 100 milyan oo euro. Labada kooxood Ajax iyo Manchester United ayaa ka wada hadlaya qaabka loo bixinayo lacagta, isla markaasna ay doonayaan in ay dhameystiraan heshiiska. Xidiga Anthony ayaa dhankiisa waqti hore heshiiska shakhsiga la gaaray, waxaana uu doonayaa inuu ku biiro Manchester United. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa u sheegay Manchester United inuu doonayo inuu ku biiro kooxda Chelsea kadib markii ay Red Devils dalab waqti dambe ay ka gudbiyeen saxiixa xidigan, sida ay wararka ka imaanaya Spain ay sheegayaan. Barcelona ayaa doonaysa inay iska dirto xidigan Pierre-Emerick Aubameyang si ay u dhinto mushaaraadka ay bixinayso, waxayna xidigan ay dhigtay suuqa kaliibsiga ciyaartoyda. Chelsea ayaa wadahadalo kula jirta Barcelona toddobaadyadii ugu dambeeyay si ay labada kooxood ay uga heshiiyaan saxiixa xidigan. Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa Barcelona la yeelatay wadahadalo ku aadan saxiixa xidiga Pierre-Emerick Aubameyang, laakiin warbaahinta Spain ayaa sheegaya in Pierre-Emerick Aubameyang haatan heshiis uu la gaaray kooxda Chelsea, isla markaana uu doonayo inuu ku biiro Blues. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa u sheegay maamulka Red Devils in uu doorbidayo ku biirista Chelsea ugana ciyaaro tartanka Champions League xilli ciyaareedka cusub. Liverpool ayaa heshiis afka la gaartay ciyaaryahanka khadka dhexe Borussia Dortmund ee Jude Bellingham, inkastoo ay Reds ay doonayso inay xoojiso khadkeeda dhexe ka hor September 1, haddana lama filayo in ay Bellingham la soo wareegto suuqan kaliibsiga ee haatan. Si kastaba ha ahaatee, Liverpool ayaa haatan ka shaqeynaysa saxiixa xidiga reer England, iyadoo Borussia Dortmund ka diiday in ay iibiso xidigan xagaagan 19 sano jirkan, kaasi oo sidoo kale xiiso u ka helay Real Madrid. Liverpool ayaa la rumaysan yahay in ay doonayso inay dhameystirto saxiixa xidigan xagaagan si ay u soo qaadato suuqa January. Bellingham ayaa 3 sano uga harsan yahay heshiiska Borussia Dortmund, haatan waxa uu ku bilowday dhammaan kulamadii ay kooxdiisa ciyaartay xilli ciyaareedkan. Xidiga kooxda Leicester City Wesley Fofana ayaa ku sii dhawaanaya kooxda Chelsea, isagoo isku diyaarinaya inuu tijaabada caafimaadka u maro kooxda Chelsea. Chelsea ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Leicester City Sabtidii, laakiin xidiga ayaan qayb ka ahayn kooxda Leicester City ee ciyaartay kulankaasi. Blues ayaa lagu soo waramayaa in Leicester City ay kala heshiisay saxiixa xidiga reer France, kaasi oo ay ka dhigayaan daafac ugu qaalisan ee suuqana. Sida laga soo xigtay Fabrizio Romano, Wesley Fofana ayaa saacadaha soo socda tijaabada caafimaadka u mari doona kooxda Chelsea. Blues ayaa xidiga Wesley Fofana ka bixinaysa lacag gaaraysa 70 milyan oo toos iyo lacag guna oo kor u dhaafaya 90 milyan oo euro. Ugu dambeyntii, Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay wada hadallo heshiis kordhin ay la furto xidiga kooxdaasi ee Anthony Martial.
xidiga 26 sano jirka ayaa la filayaa inuu isaga tago kooxda xagaagana kadib markii uu amaah ku qaatay Sevilla qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore. laakiin xidiga reer France ayaa qaab ciyaareed fiican soo bandhigay kulamadii kooxda ee isku diyaarinaysay xilli ciyaareedka cusub. Tababare Erik ten Hag ayaa go'aansaday in fursad kale uu siiyo xidiga Anthony Martial welina xilli ciyaareedkan ka dhigo weeraryahankiisa koowaad ee kooxda United. xidigan ayaa ilaa haatan 45 daqiiqo ciyaaray afartii kulan ee ciyaartay Manchester United sababo la xiriira dhaawacyo soo gaaray xidigana. sida ay sheegayaan wararka saaka soo baxay, Anthony Martial ayaa ku dhow inuu heshiis cusub u saxiixo kooxda United si ay u hubiso mustaqbalkiisa xidiga reer Faransa. guud ahaan waa naga intaa barnaamijka horyaalka ciyaaraha adduunka. fadlan haddaad ku cusub tahay like inoo saar, subscribe siina share garaysi barnaamijkeena asxaab badan u gaaro.